waa mar kale iyo warka teknolojiyada ee toddobaadkan. Hollywood oo isticmaalaysa online streaming, tartanka Chile ee baabuurta qoraxda ku shaqeeya, Facebook ma ku basaasay xataa marka aad iska damiso, iyo hotel xidigaha laga daawado. markii ugu horeysay ayaa studio weyn oo Hollywood ah uu film cusub ku sii daayay online video halkii uu isticmaali lahaa television lacag lagu daawado. Studioha DreamWorks Animation ayaa waxa uu ku dhawaaqay in uu heshiiskan la galay shirkadda Mareykanka ee Netflix ee online video. dadka uu u rukuman yahay Netflix kaligood ayaa daawan kara aflaanta cusub ee studiohan oo isagu sameeyay aflaanta laga daba dhacay sida Shrek iyo Kung Fu Panda. laakiin heshiiskani ma hirgeli doono ka hor 2013 intaasna waxaa ka sii dari doona tartanka suuqa videoga internetka lagu sii daayo. tartan baabuur ku socota tamarta qoraxda ayaa ka dhacay lama deegaanka Atacama ee dalka Chile. waa tartan noocaas ah kii ugu horeeyay ee ka dhaca Latin America. ardayda gobolka ee isku diyaarinaysa inay tartan ka qayb galaan ayaa soo bandhigay nooca baabuurta ee ay uga qayb galayaan. ay ku soo bandhigeen magaalada Santiago. baabuurtaas xawaarahoodu waa gaabiya oo waxay ku ordi karaan 30 mayl saacadii. laakiin milkiilayaasha baabuurtaas ayaa ku kalsoon inay 3 maalmood gudahood uga gooshi doonaan 660 mayl. qabiir kombiyuutarada oo reer Australia ah ayaa Facebook ka helay bug ama cilad dadka isticmaala Facebook ka aruurinaysa xog ku saabsan isticmaalkooda internetka xataa marka ay iska damiyaan Facebook. Nick Kaprilovich waxa uu sheegay in marka qofka uu booqdo Facebook oo ah bar bulsho ay cookie ku rakibmayso kombiyuutarka qofka, markaasna wuxuu soo ururinayaa xogta baraha kale ee aad booqato ee ku xiriirsan Facebook. haddii aad dhibsato nololka magaalada ee aad u xiistay muuqaalka xidigaha waxaa ku anfacaya hoteelkan. sanadkan ayaa duleedka magaalada Paris beer ku taala ayaa laga furay hotel loogu talagalay inay dadku habeenkii cirka daawadaan iyaga oo jiifa sariirtooda. waxaa loo dhisay qaab kuleelka iyo caburka teendooyinka ka saaraya qolalka hoteelkan.